waxaa maanta magaalada Boorama soo gaaray mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka badbaadada iyo horumarinta Somaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo badbaado. Mas'uuliyiinta ururkan oo kulan ballaaran kula qaatay magaalada Boorama, salaadiinta, culamaa diinta, waxgaradka iyo dadweyne aad u tiro badan. Madal heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Dr. Axmed Aadan Buuxane, waxaana uu tilmaamay ururkan hadda wuxuu ku baaqayaa asal waxaan lahayn ku baaqayaa uma baaqayo xulul mustawrada ama import solutions wax la soo dhoofiyay la sharqiyya wala qarbiya midna dooni been waxaan ku leenahay waxaan asal noo ah waxa la yiraahdo inaynu hawiyada qofka muslimka ee Soomaaliland dadka jooga wuxuu yahay iyo wuxuu aaminsan yahay ba ummadda ugu yeedhina manihin dad wata dhaqamo kale manihin kuwa laga soo guuriyay goobo kale waa dalkaagi iyo dadkaagi iyo inankaagi weeyaan oo wata waxa ku dhalatay iyo waxa aaminsanay taasi baan wadanaa ilaahay waxaan rajaynaynaa in aynu maalinta meelaha soo baxana haday noqono hoggaan kara aan laga arko nadiif iyo dad wanaagsan haddii ay noqoto in laga helana waxaan ballan qaadaynaa in aanu ka lugayn doono oo noqon doono shaqooyinkayga howlaha. sidoo kale waxaa halkaasi isaguna ka hadlay mid ka mid ah aasaasayaashii ururkaasi Dr. Aadan Axmed Daahir. kowlahaan waxaanu ka mid nahay dadweynaha Soomaaliland, waxaanu nahay urur siyaasadeed oo aan la leeyahay haddii aanu siyaasadda dalka ku soo baxno waxaanu diyaar u nahay oo aanu noqonaynaa inaanu noqono markaa kuwa hagaajiya macni waxa weeye wanaagii dhammaan dalku lahaa. qaar ka mid ah culamaa diinta iyo salaadiinta dhaqanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay urur siyaasadeedkan cusub ee badbaado. gudoomiyaha urur siyaasadeedkaasi cusub ee badbaado mudane Axmed Cali Shire oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay waxa badbaado keenay dareen ah haddaynu helno dawlad hagaagsan dal horumar leh ummad himilo leh waqfaani karta gaari karta waa meel la gaari karin ma jirte deeq bixiye inuu dalkani noqdo nin u socda ee aan isagu daar ka dhisanayn haddaanu ka helno annagu badbaado kamalihin ujeedada iyo doorta inaan fahamno waa taa weeye. Cabdulla Ali Yusuf, On Cable TV, magaalada Boorama.